وارنتا maxay waalaya miyadan xaaskayga saaxiibtada ahayn oo hadaan ahayna waxa ka sheekanayso saaxiibada ninkeeda ma ayadiga xaarantin si baajirta maalmahan waan kula socday ishaadu ana ay badnayd marka maxaad ii fahmi weyday ragga mooday baanan ahayn saadkeynta iska dhaaf aan mid ku su'aalay xeerka dumarka miyay ku jirtaa in saaxiibta ninkeeda loo daamaro annagu waxaana dhaamaba lihinba koo bila xaas miyaa weyday ma waa inay doqba jira hadda maxay iimaanka iskaga qaadanoo dadkooda u doonan hadda miyay ogtahay iyadu inay ku ogaato baa fiicnaan lahayd saaxiibta ilaa yaraanteeda xuma kan laan maanta nin kala yeelan meeno haye ii wad sheekada saa weeye marka gurigan sababta lagu keenay ma garan horta haa waan garanaya isku day marka inay xadkaaga ku ekaato haye ii warrama الله قفا وحوجينها عذاب أبيس يقولي كسرتي كور odaygan u shaqeynaysa la iyo caajis waa si fiican xabiibti ana suuqa ku raagay maya waa soo dheeraysa saako iyo ma wacdayna ها way fiicnaayeen ayo way iska sii sheekaystay waa idin soo noqonayaa gabadhan saaxiibaan hay anagoo saaxiibaan isku garaadsanay waan gartay marka wasaan ku sheegayo oday baan rabay in lagu daray ka soo baxsatay idageyso marka gabadhan sidan arkay khayr ma soo wado maxaa dhacayna wali wax ma dhicin laakiin way dhici doonaan guriga niman haday keensato waa caadi intay banaanada la istaagi lahayd taasa rooneed laakiin maaha hayade wax noo sheeg kor waayil waa wada indhaha wax ku arki doontaa oo wala jeedo waa fahmi kartaa gabadhan aad isha u hay masaaxiibadu baa maanta shakiga gelinaysaa midda kale anay marti ii tahay markaas leedahay dhaqdhaqaaqeeda la soco anayna xorriyad dareentaa raba xorriyadda ka arkaysa hadaba wax ma ku sheegaa adiga waan ku aqaana in rag baa tahay adaa u baahan dhaqdhaqaaqaaga la socdo maxaad ka hadlin maanta rabtaa inaad saaxiibaday madaxa ii geliso oo waan ku fahansanahay sidee ii fahansantahay waa xilliyadii aad meel kale ii jeedi jirtay kadibna aad shaqaysan jirtay see wax u fahantay adigu ma mid kale aad soo aragtayna waa caadi oo aan ku dhisaynay meeshan ka hadlayo baad fahmin laakiin dan baad u fahmi fariid saaxiibada dusha kala soco markaan ku mashquulana dee aadna meel kale ka wareeg waxa ii muuqatay inaad saaxiibta aad ugu kalsoon tahay aad iyo aad waliba kalsooni dhaaftay laakiin armad kalsoonida eedaa war madariska xumaysay may maaday ku xumaysay may oo miya ku shaqaysatay ii jawaab dee may mana shaqaansan intaaba hadday sameyn maxaad uga shakiday marka subax wanaagsan xabiibti la mid xabiibti ma hadda soo kacdayna haayo xalaban xil dama seexday hayo quraacdi waan ku diyaariyay hor soo quraaco subax waan sakacada adaa lagu dhahaa khayr gabadha maxaa soo aan ugu la hadli weydana ikhtiyaarka soo anigu malihi maraba guriga inta joogtayna waji xun iyo cabraad dareento saaxiib hee iskana samaatana qadada ka karinaya may saaxiib haysi dhibin may waxa la qada macalin kariisa kugu talagalay ay xabiibti inoogu tuur ما aragtaa wariya wanaageeda inay dartaa kijada u gashay qoftada daadka hoos maraya haa waan arkaa jooji marka waxaad wado meeshan iskaga tag waa jimcood sare xaqana fadhidina haa xaqana laga waayinay guriga meelan ka soo raadin malaynan ku baafiyoon bay harsanay ma ilmo lumay baan ahay marka waa yar cudurada sasan ku soo raadiyay oo meeday saaxiibtaa ma ogaayado maqanuun ba soo kacay waan gartay hayseeta isaaq waliga lagu ma oran اوكي كغدو ka hor hadaan caaw casho isku raacno oo saddexdeena maya labadeena uun guud xagaad ka dheeraynaysaa maystri haka walwaliyadina ma ogaanayso qof xaafadda martay ku cashadiisa waxaan ka soo faa'iidayo maxay tahay wayn isfahmaynaa waliba si dhaxgalaynaa meel fog baa ka fikiraysa laakiin ku suurtoobi mayso waxaad adigu ogeyn oo xaaskaaga ogeyn ma ku sheegaa muxuu yahayna qorshahaada baa la igu darabay waa beentay guriga si aanu imaadaa rabay sababtan ku dabcayna wax kala ma wanaagaaga la iga sheekeeyay yaa kaaga sheekeeyay xaaskaagu afka kaama dhigto odaygaygu waa sida run ahaantii dadka wanaagsan si dabar go'aya baa kamid tahay halka igu celiyada ay ka sheekaysay haayo kaligay ma dumarka asxaabtiina dhan bay kaaga sheekaysaa waan gartay anna waxaan siriyaan lagaaga horeey sootan leeyahay ka horeeyay aan saaxiibta qabo waa caadi oo igu labaysan hore loo yiri laba naag loo nabad ka quuso noloshana ku jira rabtaa inaad ka saarto miya asaaga waa saddexaas li afar xaasle midho gutaygu jira midho geel saaran daadin maayo adiga maxaa hal xaas ku dul dhigay see ka tahay aad bad u dheeraynaysaa inaad sirtaada ka shifanahay ugu kalifin saaxiibta way ugu kalsoontahay diyaar runta u sheegto ku aamin maysa aduun badaliya kiiska inoo qabooji midiga maqal hadaba iska jidib dabayna waxaan kale la timaado xad baynu kala leenahay xadka ka soo dhaafin jacaylku xad malataa ma ogtahay waa kugu kaliga taasi sirtada xitaa haddaan ka shifo waxba ka faa'iidi maayo oo way beenaysanaysaa saaxiibtaa anna go'aankayga waa saadiga ku helaa geed gaaban iyo geed dheer baan kuu fuuli anna go'aankayga waxa weeyna marnaba shabaqaaga ku soo dhicin kana guulaysta waa la arki maxaa rabtay qodobka hadal oon ku qabanaa sheekh qiiqayga du maxaad u socotay sheekhu arin baan u socday joog noloma sheeganaga muraadkaad u socotay muxuu yahay sheekhu nin baan jeclaaday haye ninku isu jeesan laaya sheekhu maxaa islaamso iskaabulo waa xaasle waan garanay sheekhu maxaa sameeyaana waa lagu garanayaa waxaan rabaa ninka inaan isu jeeso sheekhu ninku miyuu ka fog yahay mise uu ku dhow yahay isku guri baan joognaaba kaba wacan haye sheekhu wax samee waxaad samaynaysaa samaynaya biyaan ku habeenayaa sax
biyahan cabsi shaahana uga dhig igu halle qaybna sharaabkaad ugu daraysa haye waan uga dhigayaa adiguna hee sheekh jiir dhigti baad soo geynaysaa sheekh xagee ka keenayaana aday kuu tallaa meeshaad ka keenaysa haye dhegteen dhahayaana gacantaa midig baad ku xidhanaysaa waayahay sheekh intii hore in xageen kugu diraa ma qaadana anagu haye sheekh yeerka albaabka fadhiya u sii dir waxaad haysid waayahay sheekh hadduu saa ku daba ordi waayo anagana weydii marka hore waan ku aaminsanaa inaad tahay shiiqyada shaqo kale aan haynaa inaan wax kala furno waxna isku xidhno waxna madax isku ilaaminahay iguma dhaqaylisaan gabadha wanaaggan ay kuu samaynaysa iska jir inaad ku damaaciso ma biyaha ii keentay ku damaacinaya ma isaansaanteeda kaa soo muuqata maxaa ku helay jawariyay hee saaxiibkoo biyaha soo qabo bisinka maxaa ku dhacay saaxiib ku soo dhaqso maanta jaanis iigu dhawaa inaan ka faa'iidaystaa inaan jeclahay si aan u sixraa kula degdegi maayo arrintan jawariyay soo dheeree mahadsanid xabiibti muhiimaddu qaali waa odayga noo caafimaada hadda see tahayna waaba laygu sii siyaaday halkaasaad mooddaa ina waxay fadhiyaan waad caafimaad insha allah wax kaa dejiyaan dukaanka kaaga doonaya ay sii sug soo fadhiiso run ahaantii gabadh wanaagsan baa tahay khalad baan kaa aamini horaa loo yidhi barasho horteed ay nacin barasho horteed baan ku nacay laakiin iga raali noqo may waxaa ha u bixin nolosha ka mid tahay wax garad baa tahay run ahaantii samir iyo dulqaad baa loo baahan yahay heesna waxay ahayd samirka iyo dulqaadku waa sid lagu ducaysto ruuxu eebba siiyana ciidi kama sarrayso waxaan filayaa inay heesa isku wacantihiin may marmar baa ku turtaa uun horay baan u soo waayay darka baan ku helay igadaa ma rabee dartaa baan u dooray sidee baad u leedahay ma rabo kadaa saaxiib qaylada keenanaa siinin caafimaadkaaga ka taliyo saaxiib wax walba degnaan baa lagu dhammeeyaa haye saaxiib nasiinaan u baahanahay anigu haye anna shax baan kuu soo karin fadhiiso hee sababtaad aniga sharaabka iga diiday iyadoo noogu yeeshay maxay tahayna haddaan ka diidi lahaa soo iguma dhaqaylisaan gabadha wanaaggan ay kuu samaynaysa iska jir inaad ku damaaciso ma biyaha ii keentay ku damaacinaya ma isaansaanteeda kaa soo muuqata waxaad indhaha ku aragtay igula xisaabtan isku badnow saaxiib su'aalaha maalayacniga igala dhammow fariid dulqaadkaad iga dhammaynaysaa la soco hadalla waaweyn baa kaa soo baxaye maanta may sharar ay qabatay adiga su'aalaha cusub i weydiinaye saaxiib xaajiga maxaad ugu qaylimuuna xanuunsanayn may saaxiib arrimo faamilkaa baan ka wada hadlaynay wax kasta xilliga ay muhiimka ku yihiin baa laga hadlaa hadda nasiim u baahan yahay mar kale kala hadlo jawariyay hee kaalay bal waxani waa maxay كان صاحب محوي هنا أنا عبه العشر با هاي ولاد باي صوت فاي أو حاجة حنونة صاحب شركة دم بحنونة مركز 10 صوت فطاي أو صاحب محد حنون كاجي قرصي ولو كان كودي ذي صاحب واحد قرصت وك وقرصت أنا هو نقن ويا صاحب لكن أبغى أقول حجر محوي هنا ولقي 10 أبح لو قد حري لكن ما رجع وواحد ملين إنش حجابيو صاحبك شو كقاعدوا ميرو عندكم هاي صاحب arrin kalena waan rabay inaan kuu sheego arrin khayr leh safar baa igu yimi oo xagee ah hooyo dhulka baan isleeyahay soo booqo caana doonanaysaa dhowrka cashaan maqnahay reerkaadaan kuugu ogahay anaa igu ogtahay wixii faamilay iyo wixii marti ayaan dareemin inaan maqnahay xaajigu miyuu ku raacayaa ma isaga hawlihiisa badan oo raaci maayo baga waa sidii aan rabay haye marka isagana xil weyn iska sii saarayaan laga dareemin xaaskiisa maqan tahay igu haleetahay inaad maqan tahay marna dareemi maayo waan kuugu ogaa kartida saaxiib marka goorma tagi saaxiib galabtaan baxaya insha Allah waayay saaxiib ilaahay ku nabadgeeyo waayay saaxiib saasan isku ognahay ballan weeye inaad u soo noqonin aad ugu leedahay waa inaad u soo noqotaa nin aan ugu leeyahay yaa weeyana waa xaaskii kan telefoonka waxna qaso ma baahnina ka waran joogan oo kale hore ma aragtayna weligay xitaa ma niyeysan inaan halkan oo kale imaanayo nin buuq iyo qayl la tagtay maanta laakiin haddaan helay daawadeedii dadku hadday hanta sheekadayda maqlaan saas bay oranayaan marwo hee saliidu way sii dhammaanaysaa allow yaa inta hadhayna u karkariyo wejiga kaga shuba haye waan soo iibin marwo waxaan rabay maxaad rabtayna xaafadayda masku buuqsan waxaan rabay 3 shayna qoli banaysaan maxaa kaa soo yeeray ma u soo gurbu ku yirina kee isagu waa kee axadka guriga ii jooga xaajigaaga qorshe fiican baa badagteen anigu boorsada ku doonaana kuma fahmin waa fahmi doontaa hay maada isaguna shidaanka iska naar joogana ka furayee استاق ويلك عريسانو حاربتا waxaan ku weydiin shalay halkeed jirtayna meeshan aadi jiray xagee ahaydna suuqa galabtiina xageed joogtayna isla suuqan joogay okay adna shalay galab markaad baxday halkeed aadi guriga hooyaday baan aaday dadkan waa ayana